السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتو عنا وناقصن ومدهر سوماليلان ميل كستا جوجتان دل iyo dibadba waxaan leeyahay ilaahay cimriga caafimaadka nimcada aynu ku jirno baraaraha aynu ku jirno deganaanshaha aynu dareemayno nabad aynu haysano horumarka ballaaran maamulka quruxda badan ee ilaahayna siiyay wadankeena madax banaanidiisa quruxda badan habsamadka maxay tala kala dambeynta horsocodka deganaanshaha leh ilaahay hortay aynoo siyaadiyo intaa ka bacdi waxaan halkan hambaliyo bogaadin soo dhaweyn mug iyo miisaankeeda wadata uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo maanta khudbad mug iyo miisaankeeda ala khudbada jeediyay oo dhamaantay hadan shacabka reer Somaliland hayna aanu soo wada dhaweynay khudbadaasoo in badan wax fara badan oo maxay talo umadu madaxweynaha ka filanaysay ama ka sugaysay la soo hor istaagay kana qanciyay qodobo fara badan oo dul istaagay madaxweynuhu waa soo dhaweynaynaa madaxweyne waxaan leenahay waan kugu maalay madaxweyne waxa weeye sida noo maamulaysa siyaasadda waxa weeye hogaamintaada waxa kuuri lagama sheekayn karo waan la dhacnay anaga waxa weeye xumaantaada iyo maxay toolay dhaliishaada dad laga dhaadhicin karayo qalbiyan baana looga dhaadhicinayn qulubahan baana looga dhaadhicinayn maskax ka xadis baana looga dhaadhicin karin waxa weeye madaxweyne anagu haddaan shacabka reer Somaliland nahay dhamaantii oon ku wada dooranay waanaanu kugu maalay ma fahanti waxa